السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أقرأ كيغا وأنا أركي والله ويقول عادي أنا قرية بدن مصر وأنا سودجي waxaan soo markan xataa single ka ahaa guriyo badan waan ka guurnay guriyana waan degnay ilaa October waan deganaa qisadayda waan ka sheekeeyaa laakiin hal guri baan noogu darnaa hal guri oo hal habeen xataa dadka mar dibadda laga wada dhigo la shiiday guriga ay gabadhu nagaga dhimatay gabdhihii ila deganaana ilaa hadda qaar baa qaahiro jooga way og yihiin gurigaasaan noogu darnaa guriga intii horena waxba la nooma dhimin jirin laakiin markii dambe baa dagaal la nagu bilaabay oo habeenka aan waliba waan maqnaa oo waan xanuunsanaa waan dhaadhacay hablihii guriga jooga weelkii madbaxu sidoo u dhanaaba lagu shiiday way nool yihiin gabdhihii laamika been ma sheegayo dad baa soo qoray waa been waxba ma aragno waxba hadaanad arkin guriyo fiican way jiraan ilaahay kuma tusiyaba waa been hayso qorin intaan guursadayna guriyo waan soo degdegay guriyo wallahi iska fiican iska qabow imikadan guri baan deganahay alxamdulillah iska fiican yahay ilaahay ima tuso ima keeno laakiin guriga imika aan ka soo guuray wuxuu ahaa dhaxal buu ahaa walaalaha wada lahaa imaarada guri ka balaayo badan wallahi weligay ma arkin gabadhaas waxa sheegaysana waan arkay ilmahaygoo yar wiilkaygoo yar markii ugu horeyseen ilmaha dhalay ahayd أنا أموله وي أجيال المه بان سيدان بانو جيفي سررت الجنب جي ودنا عم بوحيجي لكن دنا على الباب كان مضح أصول شديد بان درامي ويدا ما بتشري تشرين بتلفون إنترنت لقى قال إياه وحسمي تشرين لابتوب حرق بالسوق قاعدين تشري لابتوب لقشين تشري شكل دربه هاد مركز تلفونات تكون مشغول شدي حامل بتشرين بقى واحد عضي إن أنا صاء جيفه مخدت كجيفه baan dareemay wax dheero deesaas ii soo dul joogsada har oo kala de har dumar oo kala de qof dhar dumar sito kale ilmihii xagan ii ag yaalay eegtiyaan baan arkay ilmihii xagan ii ag yaalay mara yaro koofiyad loo ilmaha loo galiyo oo la dhax dhigo oo dusha ka saarnayd ilmaha oo saa u sii duulayso maan arko mana hurdo markii ma soo galay bahasho saa u sii duulaysa oo idul marayso maan arkay tiibaan ilmihii mooday ilmahay dhigwaan qaydiye weelmahaygi maradii baan raacay maradii sida aan u raaceen daba cararay show ilmihii waaba la qaado kabarkii iyo sarirtii laba dhaxaadkoodii baa lagu tuuray joogtii ilmihii qayladii aan qaydiyay ilmahay dhigtay ayuu inankii qabay xaga ka soo cararay daarada albaabkii uu soo galay soo garitaankii albaabkii uu soo furay iyo ilmihii dhulka ku sii dhacayaba bahashiina aan waan ka daba cararay wixii faaruqan arkay dib baan u soo noqday waa ilmiyo kabarkii iyo sarartii dhinacii kale ku sii dhacayba isagaaba gacantiisa ku soo qaadayba markaana way igu dhacday ilmaha la iga tuuray mar labaadna ilmaha waa la iga tuuray nafsu sareertii tayda yare ugu yar inankaygi iyo inantayda yaa inankaygu 7 jir buu ahaaba nin iska weyn buu ahaa teer buu la ciyaarayay waxna way isla daawanayeen baan ka yiri soo meedhanayaa hay hooyo kabacdi waxaan ku odhan hooyo waan soo yar meedhanayaa walaashiina ha sii hurudee waqti la isrogrogo may gaadhinba nafsu sidii baa loo soo riday inantii yaradsan ku dhikay miday dhakhtarkan habeenkii oo dhan la taagnaa raadiyoogi madaxa raadiyoogi feeraha kii caloosho waxba ma qabtaa leeyahay marka dhowr jeer way igu dhacday ubadadaas xataa marmar inankayga albaabka maqsinka baa albaabkii wax ku tiirsan yihiin ba jug laga soo siin jiray waan carari jiray waxaan dareemi jiray anoo madbaxa jooga madbaxa tooskiisa iyo waxa albaabka maqsinku waan arki jiray sidoo hadlib sii leeyahay albaabka jigtaan maqli jiray waan daba caymaday ilmihii waan iska soo qaadan jiray aada Soomaali kitaab baa ilmaha madaxa loo dhigaa kitaab yar oo loogu talagalay quraanka kama babaqtiin jirin haddana ma garanay waxaas meeshu ka imanayo suuratul baqara imikada naqalkayga waan ku shidaa ma garanayo quraan wax ku tagay muu wahayn baan u maleeyay ma garanayo maalinna ilmihii gudahayga jira albaabkii la xiray muftaahna kuma jiro waan furi kari weynaa aniga gabadh kale ay la joogto waliba waan furi kari weynay markii dambe albaabkii waa la noo jabiyay ilmihiina wallahi waxba ma qamin alxamdulillah maqsinkayga kala xataa qofkii gurigayga yimid oo garanaya birta sidana iyadoo jaban
way jabneed ninka dhan ee mafaatiixda muftaax baa xagga hoose kaga jiray intaa la galay oo la isku xidhay muftaaxii ayaa ninka mafaatiixda u yeedhnay lendarkii ciyaalka igaga jiray ii jabi kulaha qofbaa ku jira war qofna kuma jiree wax isku xidhay ma garanayna ii jabi wuxuu yidhi baafka dhan ee xaggaa ka shaqaynaya waxaan lahaaba samaacad weyn amba baaf weyn oo guriga iska dhex yaalla oo kalee ku dhex jiro oo baandkaa tireer qur-aan shaqaynaya soo qaada halkan soo dhiga markii buu ii jabiyey markaa wax walba waan ka arkay waxyaalaha aan ka arkay alla yarxam walaashay xataa marxuuntii inan sheekhaday ahayd markay xataa ii timid ahligeyga qof kastoo ii yimid uu arkay waxyaalaha aan ka arkay gurigaa aan ka soo guuray anigu kama cabsoon jirin markii dambe waan la qabsaday waan iska bartee waxyaalahaan ka arkay haddaan ka sheekeeyo dad baaba seexanaynba walaahi waan kasoo guuray laakiin iminka kuwii hore horta dhibaato igumayba hayn jirinba waan iska dareemi jiray waan arki jiray harkiya waxaas wax ubadka laakiin markii dambe kuwa yimid ee jaarka ila noqday laga yaabaabay ahaayeen waan iska xamanaynaa dambay naga siiyeen waaniga iminka akhiira nuga soo baxayba